بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وبمنك ولطفك يا كريم اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه بعد waxaan kusoo jirnay kitaabkeenii al-usuul الثلاثة وأدلتها waxaan soo gaarnay asalka saddexaad mu'alifku wuxuu yiri raximahullahu tacaala al-aslu الثالث asalka saddexaad macrifatu nabiyikum nabigiina barashadiisa muxammadin sala allahu calayhi wasalam waa inaad barataan nabigiina muxamed sala allahu calayhi wasalam وهو أصغى محمد بن عبد الله وهو نبينا وهو أصغى محمد كي ابن عبد الله ويلكي ساها ابن عبد المطلب ابن هاشم وهاشم من قريش أيوك هذه وقريش من العرب عرب أيك هذه والعرب عربنا من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام عربتنا وحيكاهاتي أولادي النبي إسماعيل كي إن إبراهيم السجا هي النبي دوشو هذا هاتو صلاة السلام دو فضل بدن وله نبي وحاوسنا من العمر داد حق 63 سنة سدح إيا 6 سنة منها وحا كمده 40 قبل النبوة نبي لماذا كوريسي إيا 23 سدح إيا 40 نبيا رسولا ورسولا سدح إيا 20 سنة نبي إيا رسول أيها نبئ waxaa nabi looga dhigay oo looga waramay biiqra ayaa nabi looga dhigay wa ursila waxaa rasuul looga dhigay bil mudaththir ayaa looga dhigay wa baladuhu nabiga beledkiisa makkatu waa makka bacathahu allahu ilaahay ayaa soo diray binnadaarati digniin أو بالنذارة دجنين وكدجاي عن الشرك قال لماذا هو يدعو يري إلى التوحيد توحيدك إلهي وصادر النبي صلى الله عليه وسلم سأل الله صادر ذاتك إنه ودي قال لماذا ونأوير توحيدك يا الله كريريديس والدليل وحاول دليل قوله تعالى ألا قول كيسا يا أيها المدثر كان ازدودوا يوم قم استاق فانذر دك وربك ربك أغنى فكبر وينيه وثيابك درك أغنى فطهر ظاهره والرجس أسنامتنا فهجر كهاجر ولا تمنن هقال ديسن أو هقال شيغاني تستكثر أذيك وبدس دلباي ولربك ربك أغنى فاصبر وصبر ومعنى قم فأنذر معنى هذا أي ينذر وأوديغيا عن الشرك قال لما أيوك ديغيا ويدعو ويريا إلى التوحيد وربك فكبر أي عظمه وينيه بالتوحيد توحيدك وينيه وثيابك فطهر أي طهر ظاهري أعمالك أعماش هذا عن الشرك قال لما كظاهري والرجز فهجر الرجز الأصنام وصنم يدا وهجرها أصنام تهاجرتان كوغنة تركها كتايد يدوات والبراءة يكبري أهانشو منها أصنام تلقبري نغضو يا وأهلها أصنام تأهل كذا وإن لقبري نغضو أخذ على هذا وحقوق على هذا أرنكاني 10 سنين
toban sano yadcuu asagoo ugu yeeraya ila towxiidi towxiidka. wa bacda alcashri toban kadib xurija bihi waxaa lala koray ila asamaa'i samada, wa furidat calayhi waxaana lagu waajibiyey alsalawaatu lkhamsu salaadaha shanta ah. wa sallaa nabiga waa dukaday fii makata magaalada maka dhexdeeda 3 siniina 3 sano. wa bacdahaa markaa kadib umira waxaa la faray bilhijrati inuu u hijroodo ila almadiinati magaalada madiina. nabiga sala allahu alay wasalam 10 sano uu towxiidka ugu yeerayo kadib al-israa wal-micraaj ayaa dhacay. habeenkii nabiga la dheelmiyey oo samada lala koray, salaadihii shanta ahaydna waa lagu waajibiyey. 3 sano maka ayuu ku dukaday, kadibna waxaa la faray inuu hijroodo. walhijratu hijrada al-intiqaalu waa in laga guuro min baladi shirki gaalnimo beledkeeda in laga guuro ilaa baladi lislaami islaam beledkiisana loo guuro. walhijratu hijrada fariidatun waa waajib calaa haadihi lummati ummadaani dusheeda ay hijrooto min baladi shirki beled gaalnimo ay ka hijrooto ilaa baladi lislaami beled islaami u hijrooto. wahiya hijrada baaqiyatun waa mid baaqi ah ilaa an taquuma asaaca ilaa ay saacadda qiyaamo ka istaagto. waddaliilu waxaa u daliila qowluhu tacaala alla qowlkiisa ina aladiina kuwa tawaffaahum ay oofsanayso almalaa'ikatu malaa'igta daalimii anfusihim naftooda iyagoo dulmiyey ama iyagoo naftooda dulmiyey oo halaagii wax ku riday iyo shirki iyo gaalnimo ay nafsadooda oofsato, qaaluu malaa'igtii waxay leedahay fiima kuntum war maxaad ahaydeen? qaaluu waxay leeyihiin kunnaa waxaanu ahaynay mustadcafiina kuwa la taag daraysto fil ardi dhulka dhexdiisa. qaaluu malaa'igtii waxay leeyihiin alam takun miyaynan ahayn ardullaahi ilaahay dhulkiisa waasicatan mid ballaaran oo fatuhaajiruu fiiha aada u hijrootaan. fa ulaa'ika kuwaasi ma'waahum hoygooda jahannamu waa naarta jahannamo walciyaadu billaah. wasaa-ad waxaana xumaatay masiiran meel loo ahaado. ila almustadcafiina kuwa la tabar daraystay mooye oo min alrijaali ragga ka tirsan iyo wannisaa'i dumarka iyo walwildaani caruurta laa yastadiicuuna aan karin xiilatan xeelad walaa yahtaduuna aanan ku hanuuni karin sabiilan jid oo jidna aysan garanaynin. fa ulaa'ika kuwaasi casa allaahu alla wuxuu xaqiiqo ku yahay an yacfuwa canhum inuu cafiyo. wa kaana allaahu ilaahay wuxuuna ahaaday walaa yazaalu kamana zuulaaye cafuwan mid cafin badan gafuuran dembi dhah badan. wa qowluhu tacaala alla qowlkiisa yaa cibaadii addoomadeyda aladiina kuwa aamanuu allay rasuul rumeeyey inna ardii dhulkayga waasicatu mid waasaca waay ee fa iyaaya aniga un facbuduuni icaabuda. qaala albagawiyu raximahu llahu tacaala alimaamu albagawi almufasiru lkabiir wuxuu yihi sababu nusuuli haadihi alaaya aayaddaani soo degiddeeda sababkeeda filmuslimiina muslimiinta ayay ahaatay, muslimiin ayay kusoo degtay. aladiina muslimiinta oo bimakata ay fii makata maka ku sugnaaday lam yuhaajiruu aanan hijroonin naadaahum ullahu ilaahay wuxuu ugu dhawaaqay bismi liimaani iimaan ayuu ugu dhawaaqay. wadaliilu waxaa u daliile cala alhijrati hijrada waxaa u daliila min asunnati sunnada xaggeeda waxaa uga daliile qowluhu sala allahu calayhi wasalama nabiga qowlkiisa ayaa u daliilay laa tanqadicu lhijratu hijradu ma go-ayso xataa tanqadica towbatu ilaa ay toobadii go-do. walaa tanqadicu towbatu toobaduna go-i mayso xataa tadluca ashamsu ilaa ay qoraxda kasoo dhalato
min maqribihaa halka ay u dhacdo ilaa ay kasoo dhalato. falamaa goortii istaqara uu ku sugnaaday bilmadiinati magaalada madiino umira waxaa la amray bibaqiyati sharaa'ici alislaami islaamka shareecooyinkiisa intays hartay, mithlu zakaati zakadii oo kale, waasawmi soomkii oo kale, waalxaji xajkii oo kale, waal-adaani aadaankii oo kale, waaljihaadi jihaadkii oo kale, waalamri bilmacruufi wanaagga oo la ysfaro oo kale, wannahyi cani ilmunkari xumaanta oo la yska reebo oo kale. akhada wuxuu guda galay uu qaaday calaa haada arrinkani 10 siniina 10 sanone tan ayuu waday. wa tuwafiya waa la oofsaday nabiga sala allahu calayhi wasalam, wa diinuhu diintiisune baaqin tu baaqi ah waaye. wa haadaakani diinuhu waa diinkiisii laa khayr ma ahaanin ilaa dalla lummata ummadda waa uu tusay calayhi dushiisa, walaa shar ma ahaanin ilaa xadarahaa waa uga digay minhu, yani xaggiisa ayuu uga digay, shartaas waa uga digay. waalkhayru khayrka alladii khayrka dallahaa calayhi uu tusiyey altawxiidu waa towxiidka, iyo wa jamiicu maa shay dhammaantiisa yuxibuhu allahu alla uu jecel yahay, wayardaahu uuna raadi ka yahay. washaru sharka alladii sharka xadarahaa uu uga digay minhu xaggiisa ashirku waa gaalnimo, iyo wa jamiicu maa shay dhammaantiisa yakrahuhu llahu ilaahay uu necab yahay, wayabaahu uu diidaayo. shartoo dhan waa taasa alle waa uga digay, nabigana waa uga digay sala allah alay slam. bacahahu allahu ilaahay baa usoo diray ila annaasi dadka kaafatan dhammaan, waftarada waa uu waajibiyey daacatahu asaga adeecidiisa calaa jamiici thaqalayni labadii la cusleeyey oo dhan, aljinni waalinsi ah. wadaliilu waxaa u daliili qowluhu tacaala alla qowlkiisa, jinni iyo insiba inay adeecaan inay waajib tahay. qul leh nabiyow sala allahu alay salam, yaa ayuha nnaasu dadow, innii aniga rasuulullaahi ilaahay miduu soo diray baan ahay, ilaykum xaggiinana uu usoo diray jamiican dhammaantiin. marka dhammaan ayaa loo soo diray jinni insi. wa akmala allaahu alla wa uu ku kaam yeelay bihi asaga addiina diinka. wadaliilu waxaa u daliila qowluhu tacaala alla qowlkiisa, alyowma maanta ayaan akmaltu kaamil yeelay lakum adinka diinakum diintiina, oo atmamtu aan taam yeelay calaykum dushiina nicmatii nicmadeyda, oo waradiitu aan raadi idinkaga ahay lakum adinka alislaama islaamnimada ayaan raadi idinkaga ahay diinan diin ahaan. wadaliilu waxaa u daliile calaa mowtihi nabiga dhimashadiisa sala allahu alay wasalam qowluhu tacaala, innaka adiga mayitun mid dhimanaya ayaa tahay, wa innahum iyaguna mayituuna oo kuwa dhimanaya. huma kadib inakum adinka yowma alqiyaamati maalinka qiyaamaha ayaa cinda rabbikum rabbigiina agtiisa takhtasimuuna aada ku doodeysaan, rabbigiina agtiisa ayaad ku doodeysaan, oo halka ayaa lagu kala bixi doonaa. wallahu aclam, wsala allahu wasalam.